الله ونحرسته waxaa dalka Hindiya ku geeriyooday Cabdillaahi Xirsi Baarleex oo kamid ahaa foolaadka abwaanada Soomaalida si weyn ay u yaqaaneen dadka Soomaalidu abwaanka ayaa mudooyinkii dambe la tacaalaya xanuun wadnaha isagoo dhowr jeerna baaq u diray madaxda Soomaalida iyo dadka muxsiniinta kaas oo kaga dalbanayo inay daaweyn dibadeed u qaadaan warka ku saabsan geerida abwaan Baarleex ayaa qaybaha bulshadu si weyn uga naxeen waxaana uu ku geeriyooday magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya halkaasoo sida wararku sheegayaan loo geeyay xaalad caafimaad abwaanka ayaa waxa uu caan ku ahaa dhaantada iyo suugaanta golka fuulka xafiiska warqabadka SAB TV waxa soo gaadhaya dhambaalo loogu tacsideynayo abwaanka kuwaas oo ka imanaya qaybaha bulshada gaar ahaan baahda fanka shakhsiyaad ay waqtiyo badan soo wada qaateen iyo madaxda golayaasha qaranka waxaana marxuumka ku sifeeyeen muwaadin dalkiisa wax badan u soo qabtay